labaatan iyo sideed sano oo saaxiib kula ahaa dembi dhaaf allah iga dhiganiyo shiida ka bixi waayey faqiirnimo haddaa markaa rabtaa inaa gaarigayga ku saaro waraa soconaya caashabaado waa iisoo dire sida aniga inaa naagaha ka dambeeya camal warniyo markaad shiidka kaa bato cunur camala usu ure yaa gaari ku saara karaniyo isku days faraa iga qaadniyo afaarihii ka bax afaaraaga waa ka baxayniyo ninka hadda ala hadlaya waxaa la yidhaha isku days wuxuu ahaa saaxiibkii hore oo zaa'id aan ma doonaysaa muuqaalku cajabgeliyo oo tayo sare leh waxaan filaa in ay tahay jawaabtaadu haa fadlan saaxiib dhowla noqo janalkan cabdinuur official subscribe saar kadibna furo calaamadda notificationka si ay kuugu soo dhacaan muuqaal walba oo aan soo dhigno mahadsani maartay ku tashan jiray laakiin hadda nin gaarigan haysto iyo nin bocboc iyo bugl cunaya saaxiib ma noqon karaan fiir ilaah kugu dhaariyay bens aa la yidhahdaa gaarigan waa gaari qaali ah soo marka carabtu waxay tirahdaa saaxiib ila alfaqiir walaa saaxiib ila altaajir marka ninkan waa u gooyey saaxiibka faqiirka ilaahay saaxiibka taajirkiisa malaha la yidhi marka saaxiib cusub aa samaysan rabaa yaa isoo wacoy ilaahay baara waay hello excellence okay where ay ninka hadda ilaalinaya madaxweynaha Soomaaliya waa aamin taagay madaxwashka oo doorashada ka soo qayb galin doorashada soo niyo baxar ay galin waa ku bariya madaxwashka oo meesha iska joog gaarigan asa hadda asa isii quraacda ku doono dhahay mid kale ku soo wada aqalada ku dooratid mid ka cashada ku soo wada ka war nin gaarigan quraac bis ku doonay ka war gaarigan ilaa ku dhashay quraac bis kan qadada ka war kan cashada ma aamini kartaa niyo wax ka cabsanani il ina ugu disho il bir aadan jabal jibsaaliiri saayo ilaa ila gadin waa ku bariya saayo wallahi bilaa waxa ay soo blaabkina iska arto wallahi warriyo saaxiibo waxa kugu sameeyay baaqa teed kale noqon dadka faqiiriinta ay sheegan faqiiriinta iyo ishooda kulusha zaid wa hadda ka hor anoo faqiir laba qof in la gidiyaa ku dhaw la ayra ku jirtaa saaxiib ma salaamaniyo ay iga wareej sambalolshi igu salaan ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed in shirkadda Kaafi Group ay idin keentay fursad qaali ah oo aad ku tagi karto dalka Turkiga waxna aad kaga baran karto jaamacadaha khaaska iyo kuwa dawliga ah heerarka bachelorka masterka iyo PhD-ga adeegyada ay shirkadda Kaafi Group ku qabanayso waa kow soo saarista warqadda aqbalaadda jaamacadda labo soo saarista fiisaha ardaynimo saddex soo dhaweynta dalka Turkiga afar diyaarinta deegaanka aad degi lahayd shan waxay ka soo diiwaangelinaysaa jaamacadda lix waxayna ku sameynaysaa iqaamada deganaanshaha dalka Turkiga shuruudaha ardayga laga rabo waa kow inuu haysto baasaboor laba sawir oo teesara ah saddex shahaado dugsi sare ama jaamacad afar warqadda dambe baarista CID-da shan warqadda caafimaadka wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir xafiiska iyo telefoon nambarada shaashada kaaga muuqda ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed in shirkadda Kaafi Group ay idin keentay fursad qaali ah oo aad ku tagi karto dalka Turkiga waxna aad kaga baran karto jaamacadaha khaaska iyo kuwa dawliga ah heerarka bachelorka masterka iyo PhD-ga adeegyada ay shirkadda Kaafi Group ku qabanayso waa kow soo saarista warqadda aqbalaadda jaamacadda labo soo saarista fiisaha ardaynimo saddex soo dhaweynta dalka Turkiga afar diyaarinta deegaanka aad degi lahayd shan waxay ka soo diiwaangelinaysaa jaamacadda lix waxayna ku sameynaysaa iqaamada deganaanshaha dalka Turkiga shuruudaha ardayga laga rabo waa kow inuu haysto baasaboor laba sawir oo teesara ah saddex shahaado dugsi sare ama jaamacad afar warqadda dambe baarista CID-da shan warqadda caafimaadka wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir xafiiska iyo telefoon nambarada shaashada kaaga muuqda 28 sano oo saaxiib kula ahaa dambi dhaaf allah iga dhiganiyo shiida ka bixi waayey faqiirnimo hadda markaa rabtaa inaa gaarigayga ku saaro waraa soconaya caashabaado waa iisoo dire sida anigana naagaha ka dambeeya camal warniyo markaa shiidka kaa bato cunur camala usu ure yaa gaari ku saara karaniyo isku days faraa iga qaadniyo afaarihii ka bax afaaraaga waa ka baxayniyo ninka hadda ala hadlaya waxa la yiraahdaa isku days wuxuu ahaa saaxiibkii hore oo zaid aan maartay ku tashan jiray laakiin hadda nin gaarigan haysto iyo nin bocboc iyo bugl cunaya saaxiib ma noqon karaan fiir ilaah kugu dhaariyay bens aa la yiraahdaa gaarigan waa gaari qaali ah soo marka carabtu waxay tirahdaa saaxiib ila alfaqiir walaa saaxiib ila altaajir marka ninkan waa u gooyey saaxiibka faqiirka ilaahay saaxiibka taajirkiisa malaha la yidhi marka saaxiib cusub aa samaysan rabaa yaa isoo wacoy ilaahay baara waay hello excellence okay where ay
ninka hadda ilaalinaya madaxweynaha soomaaliya baa aaminay wuxuu taagaya madaxwashka oo doorashada kasoo qayb gelin doorashada soo dhow niyo baxar ha gelin waa ku baryaa madaxwashka oo meeshaad iska joog gaarigan asa hadda asa isiiyey quraacda ku doono dhahay mid kale aan kuu soo wadaa aqadada ku doonatid midka cashada kuu soo wadaa ka waran nin gaarigan quraac bis ku doonanayo ka waran gaarigan ilaa ku dhasho quraac bis kan qadada ka waran kan cashada ma aamini kartaa niyo waxa ka cabsanayno il ina ugu disho il bir aadan jabal jibsaaliri saayo il hay la gedin waa ku baryaa saayo wallahi bilaa waxa ay soo dhaabkeeda iska arto wallahi